xarunta tala soo jeedinta Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxay ku qabatay dood qaran oo looga hadlayo xaaladda dalka uu marayo. Waa kan wariyaheena Cabdiraxiin Xuseen Caylaabe oo goobjoog ka ah warbixintaana Muqdisho inooga soo diray. Doodan qaran oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sareysa xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed, mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya, waxgarad, xildhibaano hore, siyaasiyiin iyo haween ayaa waxaa diiradda lagu saarayay xaaladda siyaasadeed ee dalka. ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay Cabdulqaadir Xaaji Xasan, gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed, iyo gudoomiye ku-xigeenka Siciid Jaamac Qorsheel waxayna ka hadleen ujeedka ururkan loo aasaasay. ujeedkeedu wuxuu yahay anaga in wadanka la hagaajiyo haddii dawladda wixii ka hadlaysan loo sheego, mucaaradka wuxuu qadahan loo sheego, mar walba aan joogno qaranka wanaajintiisa iyo hagaajintiisa. ujeedada ururka loo aasaasay waa asaas, waa urur furan, Soomaali u wada furan. marka waxaan leeyahay think tank, Somali think tank ha guuleysato, garabna lagu siiya, waxaana filaynaa haddii mustaqbalka alla yidhaa wax qof leeyahay inaan ahayn oo aad garataan oo aad dareentaan wax Soomaali oo dhan inay leedahay. La taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhinaca siyaasadda Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa sheegay in waqtiga ugu badan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay ka qaataan xildhibaanada baarlamaanka. baarlamaankeeni shaqadii ma haya, baarlamaankeena shaqadii loo doortay ma haya. wuxuu ahaa sharci dejiye ma yahay baarlamaankeeni. baarlamaankeena shaqadii loo doortay ma hayo. baarlamaankeena wuxuu ku jiraa ganacsi siyaasadeed buu ku jiraa, ganacsi siyaasadeed buu ku jiraa. boqolkiiba 90 madaxweynaha waqtigiisa waxaa qaatay parliamentarianka. boqolkiiba 90 waqtiga prime ministerka waxaa qaatay parliamentarianka. ma waxaa loo doortay madaxweynaha in uu baarlamaanka u shaqeeyo, mase waxaa loo doortay shacabka Soomaaliyeed geeska gees inuu u shaqeeyo? prime ministerka iyo xukuumadda ma waxaa loo magacaabay in uu baarlamaanka u shaqeeyo, mase waxaa loo magacaabay inuu ummadda Soomaaliyeed uu u qorsheeyo service delivery ama se adeegii bulshadan ay u baahnayd? baarlamaankii marka shaqadii loo doortay ma, balse wuxuu ku noqday argagax uu argagixiya madaxweynihii iyo prime ministerkii wax argagixiya oo cabsi geliya oo ay ka cabsadaan. sababtoo ah mooshin baankee madaxweynihii baa iqaabili waayey, mooshin baan ka keenayaa. madaxweynihii baa albaabka iga xirtay, mooshin baan ka keenayaa. prime ministerkii baa xaaskayga u diri waayey isbitaal, mooshin baan ka keenayaa. prime ministerkii baa wiil ii geyn waayey shaqo, mooshin baan ka keenayaa. taasay noqotay. wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya aysan adeegyo badan sameyn karin, taasoo uu ku macneeyay miisaaniyadda oo ku yar dawladda. saogsoontiin waxa waaye 30 sano ku soo jirnay dhibaato, 30 sano hoos u qodmaayo, aan rabnaa hadda wadaanta inaan ka soo saarno. marka ciyaar ma aha, yani 30 sano wax hoos u jiray inaan hal mar inta wadaanta geliso soo bixisaa waxay qaadanaysaa waqti badan iyo juhdi badan iyo wada tashi saano kale inaan wada tashanaa. adduunka kaleeto xukuumadaha jiro kaligeed tala ma gaarto, tala waxaa la gaaro bulshada rayidka ama civil society. ayagaa wax soo karkariyaan, ayagaa ra'yi soo jeediyaan, ayagaa toosiyaan dawladda haddii khaldan tahay. waxaan rajaynayaana civil society dhab ah oo ka bilaabatay maanta inay noqotaa. runtii annaga waxaan dhahnaa bulshada rayidka ah Soomaaliya, bulshada rayida dhab ah oo ka jirto la yaqaano ma jirto. waxa waaye bulshada rayida intay isku yimaadaan March 8 Women's Affairs laga khudbeeyo, 1 July la isugu soo baxo, laakiin civil society intay isku timaado sidii iimaanka Xasan uu sheegay hadda, professorka uu sheegay, wax raashina ala inta soo karkariso dawladda ula timaado tirada saana habboone san waxa loo saxo. annagana waa u baahanaa, waana qaadanaynaa runtii. maxaa la tabar aan hadda wax ku sameeyno ma baahaynaba. waxaan idiin sheegaa marka meesha qaladka weyn ka jira, idiin sheegaa meesha qaladka weyn ka jira horta waxaa waaye security. wadankii nabad la'aan waaye. dadkii nimankii aan dhahay dumarku ma jiraan, nimankii nabadiidka ahaa dhulka intiisa badan rabsho ka dhex wadaan. taa maxay keentay? xukuumaddii service ma bixin karto badan, waxaysan u bixin karin dakhli ma hayso. maxaa yeelay meelahaas kama qaadi karto canshuur, kama qaadi karto. bal u fiirsada budgetka 2018 waa $270 milyan. waa $270 milyan waxa waaye
isbitaal oo ku ugu hooseeya ah oo magaalada Amsterdam ama ku yaala ama Washington ku yaala budgetkiisa waa ma aha first class ma aha isbitaalada waaweyn waa billions of dollars waa laakiin 270 milyan madax la yiri wadanku maamula waa garanaysiin dhibaatadeedu waxay tahay oo laga rabo cadaalad inaad samaysid oo booliiska aad samaysid oo jidadka aad samaysid oo la rabo dadkii shaqo la geeyo arag dhibaatada kale weyn la haysato waxa waaye wadankeena 70% ayaa lagu tilmaamaa inay dhalinyaro yihiin dhalinyaradina shaqo ma haysato dhalinyaro aan shaqo haysan xagee ku mashquulayaan ama waa tahriib ama waxay galayaan dadkaas nabadiidka ah ama waxay galayaan waxyaalo kale oo anti social ah 270 milyan wax laguma samayn karo marka annaga marka hadda waxaan wadnaa idin sheego marka waxaan laga shaqeynaaye xukuumadda oo prime ministerka u yahay Xasan Khayre sidii deyntana loo ka cafin lahaa 6 bilyan oo dollarna lagu leeyahay maadaama aan qaadi kara canshuur suuqyada adduunkana lacag kama soo amahan karno maxay la deynana lagu leeyahay shaqo fiican la soo qabtay hadda imtixaanka waa ku baasnay IMF iyo World Bank waxay la geliyeen imtixaan ay dhex geliyeen aan soo wadnay 9 bilood imtixaanka waa ku baasnay waxa uu lowdahay maraan dheereen in la bilaabo debate-kana loo ka cafin lahaa markaa ka bacdi lacag kala meel kale ka dooran kartaa oo deyn baa soo qaadan kartaa dhalinyaradina shaqo la gelin karaa markaas dhinaca kale haddaan u noqono haddaay saaxiibkay Tarzan wuxuu ka shaqeeyay corruption-kii iyo dowlad wanaagnimo xumadii iyo tan ugu horeysa horta waxa waaye nidaam doorasho inaan horta sameynaa doorasho xaq ah oo aan ahayn konton qof meel la keenay iyo odayaal la keenay laakiin election la galo inaan sameynaa taana prime ministerka wuxuu sameeyay guddi la yiraahdo guddiga siyaasadda loo dhan yahay aniga qayb baan ka ahay oo ku jira guddigaas waxayna bilaabatay modelkii oo election lagu geli lahaa yaa hadda la bilaabay intii la sugi lahaa ilaa 2019 hadda la bilaabay in laga shaqeeyo si loo gaaro shaqo aan gaarsiino degmooyinka aan gaarsiino Cabdiraxiin Xuseen Caylaabe Somali Cable Muqdisho